madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waa ciidamo taabacsan madaxweynaha madaxweyneedku ka dhamaaday maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxay ku dhawaaqayaan inay difaaci doonaan madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor waxayna kaga dhawaaqeen deegaanada maamulka galmudug inay si weyn ay u difaaci doonaan madaxweynaha maamulkaasi haddaba halkay uu ku dambeeyay wada hadaladii uu waday taliyaha Soomaaliya ama markaasi waa taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaada oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaan kula wadaagi doonaa xiisadda maamulka galmudug oo markaan u muuqata marka inay dagaal ay ka fogso wayso soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 22 bisha 6 ee Juun sanadda 2026 haddii aynu ku bilaawno xiisadda maamulka galmudug ciidamo maleeshiya beeleed oo taabacsan madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in dibcan ay difaaci doonaan madaxweynaha maamulkaasi iyagoo markaasi hub iyo gaadiid fara badan soo bandhigay waxay markaasi ku dhawaaqeen inay difaaci doonaan madaxweynaha madaxweyneedku ka dhamaaday ee muddada ku dhow 3 sano ku joogo waa markaasi wada hadal oo la galay dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor haatan u muuqda inay si kala fogaanayaan dowladda dhexe federaalka Soomaaliya taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad oo gaaray maalinimadii markaasi Jimcada ahayd magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug halkaas uu kulamo kala doonayo ka wada oo markaasi uu ku gaarayo sidii xal waara loo gaari lahaa xiisadda ka taagan maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug iyo taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay kaga wada hadleen ama markaasi ay raadeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug sidii xal waara loo gaari lahaa xiisadda ka taagan maamulka galmudug balse galmudug haatan waxay u muuqataa in xiisadeedu cirka isku sii shareerayso kadib markii wada hadalkii wajigii koobaad oo fashil uu ku soo dhamaaday sidoo kale maanta waxa la rajeynayay inuu halkaas gaaro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre waxaana la doonayay in laga wada hadlo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya sidii xal waara loo gaari lahaa balse haatan xiisaddu waxay u muuqataa mid laga sii kala fogaanayo kadib markii uu fashilmay wajigii koobaad ee wada hadalka ee markaas dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad qasriga madaxtooyada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug inta badan iyadoo wax lagu guuleystay in la xaliyo xiisadii ka taagneed magaalada Caabud ee gobolka Galgaduud waxaana markaasi maleeshiya beeleedyo halkaasi ku soo bandhigay hub fara badan ay markaasi odayaasha dhaqanka iyo guddi markaasi loo xisaaray ay ku guuleysteen inay xaliyaan xiisadii ka taagneed maamulka galmudug balse maanta waxa soo shaacabahay in beelaha markaasi ka soo jeeda madaxweynaha maamulka galmudug oo ka soo jeeda ay si weyn ay hubka u qaataan iyagoo sheegay dabcan inay difaaci doonaan madaxweynaha maamulka galmudug waxayna ku dhawaaqayeen eriyo ka dhan ah oo markaasi Liibaan Maxamed Salaad oo markaasi loo yaqaan Liibaan Shuluq oo ah musharaxa si weyn ee dowladda federaalka Soomaaliya gadaal ay kaga riixayso oo ay doonayso inuu ku guuleysto xilka maamulka galmudug xiisadeedu wali way cakiran tahay taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad kulamo kala doonayo ka wada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug halkaas waxa uu doonayaa in xal waara looga gaaro xiisadda ka taagan maamulka galmudug balse wali madashu waxay u muuqataa in xal waara wali laga gaari karin iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya cadaadis ay ku saarayso taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad in halkaas uu ka keeno natiijo wax ku ool ah ku aadan sidii doorashooyinka qof iyo codka loo qaban lahaa maamulka galmudug balse haatan xiisaddu waxay u muuqataa mid lagu sii kala fogaanayo kadib markii Axmed Cabdi Kaari uu ka biyadiiday waa markaasi wada hadaladii hordhac ahayd uu la tagay taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad dhanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa la qorsheynayay inuu halkaas uu la tago gogol nabadeed oo markaasi ku aadan sidii xal waara loo gaari lahaa xiisadda ka taagan maamulka galmudug balse dabcan xiisaddu waxay u muuqataa mid cirka isku sii shareeraysa kadib markii Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu sheegay in markaasi uu doonayo in markaasi doorasho hufan laga qabto ama mid furan dabcan laga qabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor madaxweynaha madaxweyneedku ka dhamaaday maamulka galmudug waxa uu doonayaa in doorasho furan markaasi laga qabto maamulka galmudug halka dowladda Soomaaliya iyaduna u jarjarto dhinaca Mahad waa markaasi Liibaan Shuluq oo ah musharax si weyn u doonayso taasi oo doonaya inuu ku guuleysto xirka musharaxnimada maamulka galmudug xiisaddu waxay u muuqataa mid lagu sii kala fogaanayo walina ma cadda halka ay cagta saari doonto
dhinaca Caabudwaaq haddii aan dib ugu laabno halkaasi inta badan way degan tahay maleeshiya beeleedkii Caabudwaaq ee markaasi hubka watay iyana loo guuleystay in dib loo hadliyo walow galabta ay mar kale warbaahinta ka soo muuqdeen waa markaasi ciidamo maleeshiya beeleed oo hub fara badan wata oo sheegaya inay markaasi difaacayaan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor dowladda Soomaaliya cadaysyo kala duwan ay saaraysaa madaxda ugu sareysa maamulka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Dahir Ciid ayaa isagu kamid ah mas'uuliyiinta sida weyn u doonaya in doorashada hufan laga qabto maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu miiska wada hadalka ula tagay kadib markii uu la kulmay Mahad Maxamed Salaad in doorasho hufan oo furan laga qabto magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug halka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso in doorasho dhinac u jarjartay ka qabato magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuu ku adkeysanayaa isagu in doorasho hufan uu doonayo in laga qabto magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug halka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanayso in iyaduna doorasho markaasi dhinac u jarjara laga qabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug lama oga halka ay xiisadu weli ku dambay doonto balse waxaa markaasi soo ifbaxaya khilaaf xooggan oo u dhaxeeya labada dhinac waxaana la rajaynayaa inuu halkaasi uu gaaro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sidii xal waara loo gaari lahaa xiisada ka taagan maamulka Galmudug ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isagoo ciidamo fara badan ayuu halkaasi ku arooriyay oo tan markii uu dalka dib ugu laabtay ama deegaanada maamulkaasi uu dib ugu laabtay halkaasi ka qorayo waxaana xilligan la sheegayaa in qaybo badan oo kamid ah magaalooyinka ay kaga taliso markaasi maamulka Galmudug ay ku sugan yihiin ciidamada cadwa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xiisadu dabcan wali way jirtaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay markan ay doonaysaa in wada hadalladii ugu dambeeyay la gasho haddii ay fashil ku soo dhamaadaan wada hadalladana dowladdu waxay markaasi cagta saari doontaa wadadii dagaalka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wixii ka dhacay oo markaasi maanta dagaalo kale ay dib uga qarxeen waxayna dabcan ay doonaysaa inay halkaasi ka saarto madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isagu wada hadal ku joogay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug Galmudug waxay u muuqataa in xilligan dagaal uu ka qarxi karo iyadoo ciidamo badan oo maleeshiya beeleed ay ku sugeen gudaha magaaladaasi waxaana markaasi madaxtooyada maamulkaasi kulamo kala duwan ka wada madaxweynaha waa markaasi taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad waxa uu doonayaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado sidii aan xabad ay kaga dhici lahayn magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isagu ka fiican yahay wixii lafta gareen ku dhacay waxaana markaan uu haystaa deegaano badan oo ka tirsan maamulka Galmudug oo ay kamid tahay degmada Cadaado ee gobolka Midowga iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale deegaano ka tirsan Caabudwaaq oo iyaguna galgaduud kamid ah ayuu Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu gacanta ku hayaa waxaana halkaasi uu ka dhaqan gali karaa amradiisa haddii uu markaasi uu soo shacbaho dagaal u dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug wali lama oga halka xiisadu ay ku dambay doonto balse dowladda federaalka Soomaaliya xal waara oo nabadeed ay ka doonaysaa halkaasi iyadoo wafuud uu hordhac u yahay taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad halkaasi gaaray halka dhinaca kale la rajaynayo in markaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu gaaro maalmaha soo aadan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sidii xal waara loo gaari lahaa xiisada ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug oo hadan u muuqata mid markaasi cirka isku sii haddaba waxyaabaha ka soo kordha wararkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.